asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ah nolosha jilayaasha oo aan kusoo qaadana sheekooyinka dhabta ee realitiga laga diiwaangeliyay shakhsiyaadka caanka ah fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan zaki media subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheergareya waxaa mar koowaad ku bilaabanaa daawadayaasha qiimada atirishada caanka laga dambeeya shilbaa shiti kundara culeys ayaa ka degay kadib markii talaadada hore seegada lagu magaca raaj kundara lagu soo daayay damaanad wuxuuna xabsiga ku jiray in ka badan 2 bilood waxaan wada ognay raaj kundara in la xiray daawadayaasha qiimada dabiiqadii bishii July waxaan lagu xiray kiis la xiriiro inuu ninkan ka ganacsado muuqaalo anshax xumada ah oo la ogaaday kadibna booliska Bambay gacanta ku soo dhigeen xabsin loo taxaabay ilaa hadda ninkan waa maxkamad suge laakiin ugu dambeyntii talaadadii aan ka soo gudbin waxa lagu soo daayay damaanad asigoo bixiyay 50,000 oo rubiis waa lacag dabcan gaaraysa $675 Mareykanka ayaa lagu soo daayay shuruudaha lagu soo daayay raaj kundara waxaa qayb ka mar alla markii loo baahdo inuu ku soo laaban karo xabsiga sidoo kalena uusan ka bixi karin gudaha Hindiya oo laga reebo baasaboorkiisa haddaba shilbaa sheeti waxay tiraahday waxaana soo maray waqti adag ugu dambeyntii waxay tiraahday waan ka soo kabanaa waqtiga adag aan dhexda ka galnay sidoo kale xidigtan caanka waxay tiraahday waqti adag markuu ku soo maro iyo xaaladdu aad iyo aad kugu liidato haddii aad iska fariisto waxay tiraahday niyad jab ayaa ka qaadaysa laakiin waxay tiraahday qofkii waqtiga adag ku shaqeeyo oo la tacaala ayaa guuleysto ugu dambeyntii waxay tiraahday dhibaato kasta aan soo maray hadda waan ka soo kabanaya warkaas waxaa loo fahmay shilbaa sheeti inay saygeeda waqti la qaadanayso guriga farxadiisa ay kusoo laabatay gabadhan waxay tiraahday culays badan ayaa naga degay laakiin waxay diiday social media qoraalkii soo dhigtay inay kaga hadasho kiiska loo haysta saygeeda oo waxay tiraahday wax kasta waxaan ku kalsoonay go-aanka maxkamadda gaari doonto saa darteed marka shilbaa sheeti hadda waxaa muhiim u ah saygeeda raaj kundara guriga inuu kusoo laabtay oo ay waqti wada qaadanayaan sidoo kalena ay ku jirto xaalad recovery ah maskaxiyan ay kasoo kabanaysa iyo moral ahaan 60 maalmood ugu dambeysay oo guriga cidlo ku ahayd shaqada dabcan ay qabanaysa sidoo kale banaanka soo aadaysay ilmaheeda ay ka warhaysay warbaahinta culayska ay ku hayeen iyo isagee dabcan fadeexada dhexda uu kaga jira marka shilbaa sheeti waxay leedahay ugu dambeyntii I am film recovery waan soo kaban ayay ka dhawaajisay oo nafsiyan ayaa soo kabanaysa marba haddii odagii reerka guriga uu kusoo laabtay saaxiibada qiimaha badan toddobaadkan ciwaanada waxaa qaateen labada rugcadaa sida weyn loo jeceliyo Sunil Shetty iyo Jackie Shroff waxaa ka dhaxaysa saaxiibtinimo gaaraysa ku dhawaad 50 sano waxaa lagu qaabilay barnaamijka caanka loo yaqaan KBC ama Companyga Corporate sidoo kale loo yaqaan Who Wants to be a Billionaire barnaamijkan waxa dhexdhexaadii ka ah Megastar Amitabh Bachchan dadka caanka lagu wacaa martida ah kadibna su'aalaha la weydiiyay waxayna ku guuleystaan lacag fara badan oo ilaa dabcan 1 karoor gaaraysa ama ku dhawaad $136,000 Mareykanka Jackie Shroff iyo Sunil Shetty dabcan maalintii Jimcada ahayeen marti ku ahayn barnaamijkan laga daawado barta caanka loo yaqaan Sony Sunil iyo Jackie dadka ka yaabsadeen sababta waxay ka jawaabeen su'aalaha inta badan la weydiiyay soo kale tan lacagaha barnaamijka ay ku helaan waxay ugu deeqeen hay'adaha samafalka caruurta qaabilsan iyo soo kale dadka kansarka qabaan in lagu daaweeyo lacagta goobta ma aysan ka qaadan balse waxyaabaha xiisaha badnaay oo ay meesha kusoo bandhigeen waxay tahay raggan dabcan 60 sano jiraan inay dabcan ku sameeyaan goobta madasha dadka joogeen waxyaabo badan ama xujooyin badan oo la xiriiro jirdhis ahaan ayagoo sameeyaan bush abay sameeyaan sidoo kale waxay sameeyaan wax kasta oo jimicsiga jirdhiska la xiriiro Amitabh Bachchan ayaa ka yaaba da'da ay jiraan iyo sida u fudud yihiin kadib barnaamijka bilowday su'aalo kala duwan la weydiiyay sidoo kale tan waxay ka hadleen arrimo xasaasi ah iyo saaxiibtinimada ka dhaxayso Jackie Shroff wuxuu sheegay Sunil Shetty abaal weyn inuu ku leeyahay sababta wuxuu hadda ka hor aabiya xanuunsaday wuxuu dhahay sidoo kale gurigan wuxuu ahaa guri saxmad badan kadib wuxuu dhahay Sunil oo saaxiibka ah ayaa igu deeqooda gurigiisa oo meel degan ku yaalo in aabahii lagu hayo waxa lagu hayo ka dhawaadii 10 maalmood ilaa iyo dabcan 15 cisho inta uu ka soo kabanay wuxuu yiraahdaa marka Sunil Shetty abaalku ii galama iloobi kari guri degan oo dabcan ayuu ii baneeyay si dabcan aabahii lagu hayo oo xanuunsana ayuu ka dhawaajiyay Sunil sidoo kale wuxuu yiraahdaa Jackie Shroff waa saaxiib igu qaali wuxuu yiraahdaa wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadkii ugu qalqaaliyeen fanka inaan soo galo wuxuu dhahay dabcan horaantii 80maadkii waxaan iska ahaanin ganacsade ah oo dukaan u furan yahay dhar iibsado wuxuu yiraahdaa goobta dukaanka waxaa imaan jiray Jackie Shroff oo xilligaas superstar ahay oo noo sheekeyn jiray sidoo kale wuxuu dhahay macaamiil badan ii abuuray si dukaankayga wax looga gato ugu dambeyntii wuxuu igu dhiirigeliyay ka dhawaajiyay inaan filimada ku soo biiro sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Jackie Shroff wuxuu yiraahday inta fanka Hindi ku soo jiray saaxiib iga qaarsan Sunil Shetty ma aanan arkin wuxuu yiraahdaa waqtigan u baahan ee garab istaaga anigana waqtigan u baahan ayaan garab istaaga ayuu ka dhawaajiyay marka meesha waxay noqotay goobta goob emotional oo ay dabcan raggii waaweyn ku ilmayeen kadib markii ay ka sheekeen saaxiibtinimada ka dhaxayso oo 50 sano gaaraysa waliba inta aysan fan ku soo binay ka hor ay raggan saaxiibo ahayn wadayaasha qamada qodobkaas intaas aan kaga gudbeynaa bal markaan aan soo qaadan labada dhalinyarada ah waa Kiara Advani iyo soo kale xidiga caanka ee lagu magacaabo Siddharth Malhotra filimkoodii Shaharshah Blockbuster oo ka noqday OTT-ga kadib markii barta Amazon Prime Video laga daawaday dabiiqadii bishii August aan ka soo gudubnay hadda ciwaanada labadan ay sameynayaan waxay tahay toddobaadkan waxay ka qayb qaateen barnaamijka xiisaha badan ee loo yaqaan Kapil Sharma Show waxaana dabcan dhexdhexaad
dhexdhexaadiyay barnaamijkan shactiroolaha caanka Kabil Sharma oo dadka caanka markuu ku casuumo su'aalo kala duwan weydiiyo sidaa darteed marka shactiroolaha Kabil Sharma markan wuxuu gaaday Siddharth Malhotra sidii looga sheekaysanaa filimka Shehershaah wuxuu soo qaatay dabcan muuqaal ama hees filim ku jirto oo uu dhunkanayo xidigta caanka Kiara Advani oo filim kula jirta labadana dabcan waxay ku wada sugnayeen goobta barnaamijka ka socday shactiroolaha Kabil Sharma waa nin dhib badan wuxuu ku dhahay Siddharth Malhotra macquul ma tahay ama ma laga yaaba ayuu ka dhawaajiyay muuqaalka dareen ku dhaha shumiska yar ay wadaagteen Shehershaah ku jiray inuu ahaa shumis adiga ku darsatay oo Kiara ku qalqaalisay ayadana ay ka aqbashay Siddharth Malhotra wuu qoslay soo kale atirshada caanka Kiara ayadana way qosashay wuxuu yiraahday Siddharth Malhotra waxa aan ku darsanay ma jirto filimka oo wuxuu dhahay 90% wax kasta lagu soo bandhigay filimka Shehershaah waxay ku saabsan tahay noloshii Captain Vikram Batra ayay ku saabsan tahay ka dhawaajiyay intii laga rabaa laga helay Siddharth Malhotra oo Kabil Sharma mar labaad ayuu dabcan su'aal ku celiyay Siddharth Malhotra wuxuu dhahay dabcan haddii 90% filimka ee taa noloshii Vikram Batra waxaan fahmi karaa 10% in ay idinku ku darsateen marka wuxuu dhahay alloora shumiska Kiara ku gaada filimka oo ogolaatane adiga ku darsatay markaas la wada qoslay oo Siddharth Malhotra waa laga raayay maadaama asiga uu afkiis ku toogto oo dhahay dabcan 90% sheekada dhabta la soo qaatay 10% anaga ku darsan marka shactiroolaha caanka Kabil Sharma waa nin dhib badan oo meeshaas ka qabsaday marka wuxuu dhahay kaama yeelay shumiskaas adaa ku darsatay oo Kiara shumisay si kastaba ahaatee sheekadan waxay noqotay mid aad iyo aad loo hadalhayo sababtoo xalay lamaanahan dib isugu soo laabteen xiriirkooda borka jafayaan dhawaan waxaa la rajaynayaa xiriirkooda si official ah dabcan shaaca kaga qaadaan maadaama aad isku fahmaan inta ay socoto shaqadii filimkii Shehershaah sidoo kale tan dhawaanaha waqti fiican ay wada qaadanayaan fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka nolosha jilayaasha bal markaan aan soo qaadano qodob ku aadan superstarka caanka laga dambeeyay Amir Khan ee dhankaasi magaalada Hyderabad booqday ogaada Amir Khan waa nin abaal loo galo sababtoo Hyderabad u tagan waxay tahay xayeysiin inuu sameeyo filimka Love Story ka hor intuusan soo bixin maalmo ka hor aan ka hadlayna waxaan wada ognahay Amir Khan filimkiisa Lal Singh Chaddha inuu kasoo muuqanayo Naga Chaitanya oo door muhiim ku leh ogaada Naga Chaitanya Amir Khan uu garab istaagay sababtoo doorkaas waxa iska diiday Vijay Sethupathi filimkan dib u dhaca ku imaan lahaa ugu dambeyntii waxa aqbalay Naga Chaitanya inuu ku matalo door askari military ah oo dabcan boos muhiim ku leh filimka Lal Singh Chaddha shaqada Lal Singh Chaddha way dhamaatay Amir Khan wuxuu ogaaday Naga Chaitanya inuu xayeysiin u sameeyo filimkiisa Love Story kadibna waxaa lagu casuumay inuu Hyderabad imaado si uu dabcan kaga hadlo goobtii xayeysiinta lagu sameeyo filimka durba Amir Khan wuxuu kasoo duulay dhankaasi Mumbai wuxuu imaaday Hyderabad kadibna wuxuu ka qayb qaatay xayeysiin u sameynta filimka Love Story oo aan ognahay sida uu ku bilowday ganacsiga waalid uu sameeyay Amir Khan goobta markuu ka hadlay wuxuu yiraahday Naga Chaitanya shakhsi ka wanaagsan ma lahan sidoo kale wuxuu dhahay filimkii Lal Singh Chaddha in waqtiga uu talagalay ku dhamaado asiga ka dambeeyay marka wuxuu dhahay qoyska reer Akin wax kasta ay iga codsadaan waan u sameeynaya Amir Khan Hyderabad isla markii uusan ka soo tagin waxaa kadib wacay ama casuumay Nagarjuna oo aabow ah Naga Chaitanya Nagarjuna waa superstar weyn reer Telugu ka dambeeyay kadib waxaa dhahay Amir Khan in loo sameeyo casho sharaf weyn oo qoyska reer Akinya u sameeyeen meesha lagu sheekaystay Amir Khan lagu soo dhaweeyay wuxuuna Amir Khan kaga mahad celiyay qoyska reer Akinya sida sharafta badan u soo dhaweyn Hyderabad ugu soo dhaweyn casho sharafkay u sameeyeen maalmo ayuu joogay kadibna superstarkan wuxuu ku soo laabtay Bombay marka Amir Khan waa nin abaal loo galo haddii Naga Chaitanya uu ka caawiyo filimka Lal Singh Chaddha inuu door muhiim ku yeesho asna intuu baxo Hyderabad tagay ayuu filimkan xayeysiin balaaran u sameeyay kadibna qoyskii dabcan la soo casheeyay la soo sheekaystay oo waqti uu la soo qaatay daawadayaasha qamada guud ahaan barnaamijka nolosha jilayaasha aan ku soo qaadanay sheekooyin xiiso badan kuwaas oo reality ah intaas aan ku soo eleenana fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar sidoo kale saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheer gareeya waa ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu